السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب السوداء أصحابته وحين السعودي عشرة امتحانها أو إنك هذين برشة حساب تدرس السنة خاصة جبت ركيزيات تركنومتري وحوكسي صغيرين عشرة دي سجبة جبدها هذا واحد سلفيرين دونا أصحاب الفيديو وان هوري waxaan uga soo hadalnay compound English ka uga soo hadalnay waxa ay yihiin wax loo isticmaalo example na waynu ka soo xalinay oo waxaynu soo xalinay sin boqolyashan minus 50 konton haddaba waxaanu isla fiirin doonaa cos lixdan waxaan idhaahna waxay la mid tahay 0.5 haddaba taas marka waxaan xalinaynaa kadib example keenan iyaga laftigeena baynu xalin doonaa hadduu ilaahay qadaro haddaba asxaabay waxa la yiraahdaa cos lixdan waxa ay la dhigantaa cos oo 30 degree oo lagu daray 30 degree kadibna xeerkii coska muxuu ahaa a plus b wuxuu ahaa cosaska isxiji calaamada bedel saynaka isxiji macnaheedu waxa weeyaan cos a plus b waxa ay la dhigmaysay cos a cos b laga jaray sin a sin b kadibna waxa weeyaan aynu ku bedelano dhinac kasta oo aan dhahno dhinac kasta waa 30 oo aynu dhahno cos 30 oo lagu dhuftay cos 30 laga jaray sin 30 sin 30 kadibna cos 30 iyada waan garanayaa waa imisa waa root 3 divided by 2 oo lagu dhuftay root 3 divided by 2 oo laga jaray sin 30 iyada waxa weeyaan waa half sin 30 taana waxa weeyaan waa half labada hadii la isku dhufto waa 9 loo qaybiyay 4 laga jaray 1/4 kadibna kaasi waxa ay uga baxdaa 3 bay uga baxdaa 3/4 laga jaray 1/4 kadibna labada hadii la kala jaro 3 hadii laga jaro 1 waa 2 hoosayuhuna waa 4 kadibna waxa weeyaan hadii aynu si xalino aan dhahno 2 oo loo qaybiyay 4 waxa ay la macno tahay 1 oo loo qaybiyay 2 sidaasi ayay ku soo baxaysaa qiimaha 0.5 haddaba asxaabi kuwa taqaanay iyo kuwaadana aqoonba compound English waxa uu ka saacidayaa in aad ku xisaabiso oo aad soo saadho haddaba waxa isla fiirin doonaa example kan wuxuu leeyahay rewrite as single trigonometry waxaad u qodhaa oo gadaal ugu celisaa single trigonometry ugu celi macnaheedu waxa weeyaan hadda waxaynu ka bilaabaynay halakan yani hadda waxaynu ka bilaabaynay halkan inuu ka bilaabaynay tanaan haysanay kanaan u sii bedelnay kadina calaamadii equationskeeni baynu ku furfurnay maanta waxaanu haysanaa fiiri maanta waxaanu haysanaa tan yani waa maxay backward baan sameeynaa kana u sii laabaneynaa kadibna keediga ma u soo laabaneynaa gadaal baynu u laabaneynaa maanta easy weeyaan aad bay u fududahay markii sidaasi ama gadaasha loo laabanayo kadib xeerkeeni baan gadaal u celinaynaa wax kale oo aan qaban doono haba yaraatee ma jiro يعني waa maxay waa qaab labaad oo maybe examination ka lagu weydiin karo sidoo kale qaab saddexaad baa jira oo equationska imtixaanaadka lagu weydiin karo isagana video ku xiga hadduu ilaahay qadaro baynu ku wada fiirin doonaa haddaba asxaabi koowaad waxa la weydiiyay sin 37 cos 53 lagu daray cos 37 sin 53 macnaheedu waxa weeyaan equation tani waxa ay ka timaaday sin bay ka timaaday waliba sin oo la isku daray macnaheedu waxa leeyahay fiiri sin a plus b waxa ay la dhigmaysay sin a cos b oo lagu daray cos a sin b anigana maxaan haystaa maanta equationaadkaygii ay maxaan haystaa a waxa ay dhigantaa baan la dhigantaa 37 b na maxay la dhigantaa 53 kadibna labadaasaan isku darayaa wax kala sameyn maayo marka waxaan leeyahay sin a deedu waa imisa 37 lagu daray b deydu 53 labada hadii la isku daro waa 9 yani su'aasha tani waxay ka timaaday 9 bay ka timaaday waxay ka timaaday 9
macnaheedu waxa weeyaan waxa ku ogaan kadhaa haddii iyada lagu siiyo automatically labadoodii isku dar celi meesha ay ka timaadeen haddii 9 qaabkaas waxa weeyaan baynu soo furfurnay oo aynu ka keenay yani waa maxay easy weeyaan intan laga shaqeeyo aad iyo aad bay u fududahay yani waa maxay si kasta ha ahaato haddii alaabtaadu waxa weeyaan halkaas ay ahaan lahayd tusaale halkaas hadday mains ahaan lahayd tusaale anadii halkan aan mains ka dhigi lahaa halkan automatically waxay isu bedeli lahayd markaa furfurayo le tana iga tirtir tana iga yani waxay noqon lahayd a minus b bay noqon lahayd soo maahan saas oo furfur lahayd macnaheedu waa maxay eedeydin waa 37 coostaydina waxaan haystaa 53 hadhow labadoodaasaan kala jari lahaa 37 laga jar 53 baan oran lahaa yani waa maxay qaabkaas aynu loo dhaqmi lahaa laakiinse aniga qaabkaaba hadeer la ima weydin adiga qaabkii lagu weydiiyo si kastaba ha lagu weydiiyo qaabkii lagu weydiiyo waa inaad wax weeyaan soo xalin kadhaa oo soo saari kadhaa example-keena labaad aynu fiirino maxaana la weydiiyey fiiri waa minus waa cos waxa isweydiinaynaa marka costu koorma ayay negative equation teedu noqon jirtay markii ay plus tahay fiiri cos hadee waxaan ku yiri a plus b waxay la dhigantaa baan ku yiri cos a cos b laga jaray sin a sin b cos a minus b na waxay la dhigantaa cos a cos b plus sin a sin b hadaba anigu kee baan haystaa labada minus baan haystaa yani calaamad equation tan aan haystaa marka equation gadaal marka uu laabanayo maxay noqonaysaa plus bay noqonaysaa markaas aan waxa leeyahay cos a-deydu waa imisa 50 b-deydu waa imisa 30 waxa leeyahay waa 50 oo laga jaray 30 yani cos labada kala jar 20 yani cos 20 intaas kaliya weeyaan يعني دفي نادر بو تايم امتحاناتك انا ku aragtay laakiin se maybe haday imtixaanka lagu weydiiyo kale waa inaad gadaal u celin kartaa su'aashaadi waa inaad gadaal u celin kartaa kaliya adiga waxa laga rabaa equation taadina maskaxda ku hayso yani waa maxay sin2 haday plus tahay asalkeedu plus bay sin2 haday negative tahay asalkeedu negative bay cos2 haday ay plus tahay asalkeeda negative ah haday negative lagu siiyo equation iskana asalkeeda waxay ahayd positive taantuna waxa weeyaan iyadu وهذا إنه يسلف في رندونا قاب كأي حيد يوم حيد هذا بتان تاني إذا هذين كذا لو لابنو أينو من السنة تان A plus B وحي لما أنا تحي لبضو اللي سكود دري تان A تان B ولو قيبي 1 minus تان A تان B تيكلم هي تان A minus B وحي لما أنا تحي tan A minus tan B oo laga jaray 1 plus tan A tan B tan asxaabi waxa weeyaan waxa ka maamulaysa korkaas hadii plus tahay asalkeedu waa plus korkaas hadii negative tahay asalkeedu waxay ahayd negative bay maadaama halkaas marka waxa weeyaan plus ay ahayd plus ay tahay yani asalkeedu plus bay kadibna labadaas aan isku darayaa waxaan leeyahay xagee bay ka timaaday eedaydu maanta waxaan haystaa imisa weeyaan أفرتن بيدي دون وانا يستوى إمسا واللباتن يعني وحي لما معنى تيمان ليه تان A plus B ولا ميدا تان أفرتن أو لغو داري لباتن ولا ميدا تان 60 يعني أصحابي كويشن دنسكا هدين تلقلو قدالو علينا مهمة كلية رسالتك لغاد دوني وحويان أردقي على مذيه أصل كودو ميش لاي كتمادي أردقي مصو صاير كرا تصالو وكل هذا العديل لو يدين لها كوس هذا waxaan ku shaqeynay video koreysay cos 15 oo kadibna marka maxaan qaadanay waxaynu qaadanay kow waxaan yiri waxay ka timaaday cos 30 oo laga jaray 40 iyo 5 sidaas aan yiri kadibna hadda waxaan yiri cos 30 cos 40 iyo 5 lagu daray sin 30 sin 40 iyo 5 hadii tallay weydii laha maadaama plus ay tahay waxaan oran lahaa asalkeedu baa waxay ka timaaday negative kadibna waxaan oran lahaa 30 oo laga jaray 40 iyo 5 waxay la macno tahay -15 yani cos -15
هذا بس حابب waxa weeyaan videogana waxaynu ku aragnay haddii expanding formkii equationska inta lagu soo badiyo lagu dhaho celi inaynu celin karno kaliya markastana waxa ay naga saacidi doonaa equationadeeni maskaxda inaynu ku haysano هذا بس حابب waxaan filayaa videogana xogta waxaan baarsay inaynu si fiican isla fahanay هذا بس حابب intaasaan kusoo gabagabaynaynaa videogeena maanta inta aynu ku kulmi doonaa asxaabay videogiisa xiga oo aynu kaga hadli doono qaab saddexaad oo compound Englishka loo weydiin karo waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah